halkan waxaa soo socota diyaaraddii maanta ku dhacday magaalada muqdisho. diyaaradda UN-ka iska lahay inay aragteen warkeeda laga yaabaa. diyaaradda waxaa wadaa nin indha adag sida muuqata, waa isla arkaynaa markii soo dhawaato. sababtuu indha adag yahay waxa weeye diyaaradda kor waxaa muuqda taayirada labada keliyaha muuqda. taayirkii hore inuusan u baxsanayna laga yaabo, isku dayay inuu bixiyo. waa ku og yahay dabcanoo talagal see u dejin doonaa marka su-aashaas waxtaas see u dejin doonaa diyaarad aan lugta hore u baxsanayn. hawada horta ku hayaa hadda waa nin expeda, ninkan diyaaradda u wado hadduu waxaas halka lug maqantaha mujeeda uu dejiyo inta dabada dhulka u dhigo maalin kasta in la raaco diyaaraddiisu ninkan aad ugu fiican tahay. waa kan mujeeda wax lug hore ma lahan. diyaaraddu inay mid kale tahana anaa iga saxaysa magacii ku qoraayan kutusaa UN ku qornaa diyaaradda iska lahaa. waa taas hadduu hal lagu dhulka taabsiiyey labadii dambe dabadii dhulka ku hayaa oo u dhoweeyey. waa tan dabadii afku kor u qaaday, bal diyaaradsa afka ugu qaadaysa iyadoo kacaysa degaysa. arninka muxuu khabiir ahaa warkan hala dalacsi waa ka taayir ma leh UN ku qoran afku hadda dhulka u dhigo. ninkaan saaxiib waa darawal maalin walba ninkaan hala raaco waana u qalmaa in la raaco. waa kan afka usoo dhigay hadda dadka qayliyaan.